بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم كسو دواده صافي channel. waxaan ka hadlaynaa maanta kareemooyinka wajiga lagu qurxiyo ama lagu daayareeyo. kareemooyin badan ayaa suuqa yaala oo nalagaga iibiyo inay maxanahi ay waxtar u leeyihiin wajigeena ama miinta yareynayaan ama daada yareynayaan ama wajiga qurxinayaan. marka maanta waxaan rabaa inaan idin la share gareeyo fikradda aan ka qabo kareemooyinka noocaas ah ee suuqa yaala. marka horta aan u soo noqono qurxinta wajiga haweenka waa arrin muhiim ah oo kulligeenba muhiim noo ah. hase yeeshee waxaan u baahanahay inaan fahanno waxa lagu gaari karo in la helo waji qurxoon oo ma garanaysaa da'yar ka muuqato. haddaba inaan waji qurxoon helna waxa naga hortaagan maxay tahay? ani waxaan aaminsanahay waji qurxoon oo caafimaad qaba sababta lagu helo ma aha kareem suuqa laga soo iibiyay. waji qurxoon oo caafimaad qaba waxa lagu helo haddaan idin sheegayaa fikrad ahaan aniga sida ay ila tahay. waxaan idinla sheer garaynayaa maanta 10 qodob oo aad ku gaari kartid waji qurxoon. okay, qodobka koobaad waxay tahay inaad heshid hurdo fiican oo kugu filan habeenkii. sida aad ogtihiinba hurdada waa wax caafimaadka bini'aadanka oo dhan u fiican, wajiga kaliya ma aha iyo quruxda caafimaadkaaga guud oo dhan hurdada u fiican tahay. marka hurdo fiican waa inaad heshaa. haddaad hurdo fiican heli weysid waa ogtihiin oo wajiga meelahan ayaa yeesha baagis yeesha oo qofka madmadoobaada. meelahan inay baagis ku yeeshaan ay madmadoobaadaana waa wax quruxdaada affect garaynaya ama taabanaya. marka hurdo fiican inaad heshid waa qodob aad muhiim ugu ah caafimaadkaaga guud iyo ka gudaha iyo ka dibaddaba. kow. labo, waa inaad maxay ahayd to jidhka qoraxda ka ilaalisaa oo haddaad meel kulul joogtid iyo haddaad meel qabow joogtidba aad jidhka qoraxda ka ilaalisaa. maxaa yeelay qoraxda jidhka waxay u geysataa damage. waxaana la sheegay in 80% da'da ka muuqata wajiga ay ka timaado damage ka yimid qoraxda ay ka timaado ayaa la sheegay. marka waa very important, waa arrin aad muhiim u ah inaad jidhka qoraxda ka ilaalisaa oo aad markaad baxaysaan aad wajiga marsataan wax jidhka qoraxda ka difaacaya. waxaasna marka idin leeyahay wax jidhka qoraxda ka difaacay marka idin leeyahayna ma aha inaad waxa suuqa yaala kiimikada ka buuxa aad wajiga ku dhamuuqdaan oo tiraadaan qoraxdu naga cilaa kaasna problemskiisu leeyahay. marka waxa aad wajigiina marinaysaan waa inaad aad uga fakartaan. qodobka saddexaad waxaad u baahan tihiin exercise marka idin iraahdo ma u jeedo jimka aad ee bira qaad uma jeedo. aniga jimkana ma aado birana ma qaado, laakiin qofka wuxuu u baahan yahay inuu active ahaado. active-nimada waxaan ka wadaana inaad ogoshahay inaad socotid maalintii ugu yaraan nus saace inaad socotid ayaad u baahan tahay. arrintaas caafimaadkaaga oo dhan gudaha iyo dibaddaba waxay ka qaadanaysaa qayb libaax. qodobka afraad waxaad u baahan tihiin inaad maxay ahayd to cunto fiican cuntaan. maxaa yeelay quruxda waxay ka timaadaa yaa la yiri gudaha. quruxda kuma helaysid wax aad wajiga marmarisay oo qura laguma helo. quruxda waa inay gudaha ka timaadaa oo cuntada aad cunaysid ay cunto isku dheelitiran tahay oo nafaqadeeda iyo vitaminskeeda iyo faa'iidadeeda oo dhan ay isu dheelitiran tahay. waa inaad maxay to biyo badan cabtaa. waa inaad maxay ahayd to cuntada aad cunaysid iyo biyaha aad cabaysid iyo jidhkaaga gudaha waxa galaya ay qiyaasan yihiin oo controlled yihiin. waa inay controlled yihiin wax kasta inaad iska cuntid maaha, taas horaan uga wada hadalnay. marka cuntadaada waa inay wanaagsan tahay. markay cuntadaada wanaagsan tahay oo gudaha aad jidhka uu ka nool yahay dibaddana wuu ka noolaanayaa. waxaa la yiri maskaxda caafimaadka qabta waxay ku jirtaa jidhka caafimaadka qaba. marka jidhka inuu caafimaad qabo waa arrin aad muhiim u ah. qodobkeena shanaad waxaad u baahan tahay wajigaaga inaad si joogto ah u kareemaysid oo kareem u marisid, moisturize garaysid oo aanu daraay noqonin, aanu jacjacin. maxaa yeelay especially haddaad ku nooshahay dhulka qaboobaha ee anaga aan hadda joogno markuu qaboobaha dhaco jidhka hawada waa dry, jidhkana wuu jacjacaa. waa ogtihiin kulligiin dadka qaboobaha ku nool
markaas waa marka kareemo badan jirkoo dhanba wejiga kaliya jirkoo dhanba uu kareemka u baahan yahay marka si regular ah waa inaad wejiga kareem u marisaa marka idin leeyahay wejiga kareem regular mariyana waa in aad isticmaashaan kareem real ah oo magaranaysaa aad taqaanaan waxa ku jira ood hubtaan ma aha inaad kiimika wejigiina iyo jirkiina damage geynaysa inaad marisaan haddaa xitaa wax kala weysid haddaadan kareemooyin iyo aadan haysan alaabta aan ka hadlayo waxaa kugu filan saliid macsaradeeni wadankeeni taale inaad wejigaaga marsatid ood ku moisturize garaysid ama coconut oil la yaqaan oo organic ah oo clean ah inaad wejigaaga marsatid haddaadan wax kala haysanin inaad wejigaaga dabcisid oo moisturize garaysid uma baahna inaad kareem qaaliya soo gadatid oo wax ku jira aadan garanaynin qodobkeena lixaad wejiga waa inaad nadiifisaa oo aad maxay ahayto habeenkii intaadan sariirta tegin ka hor aad si fiican u nadiifisid wejigaaga markaad nadiifisidna aad kareem marisid fiican oo aad taqaanid nadaafada weliba waa inaad si aada u nadiifisid haddaad tahay dadka make upka marsada maalintii siyaabo natural ah oo wejiga make upka looga qaada ayaa jira waa inaad hababkaas martaa ee aadan wejiga ku nadiifin ama make upka uga qaadin adigoo isticmaalaya waxyaabaha chemicalka ah ee suuqa yaalay dhalooyinka ku jira ee alcoholka iyo ay ku badan yihiin maxaa la dhahay fragranceska ay ku badan yihiin waxyaabahaas jirka damage ay u leeyihiin ka digtoonaada qodobka toddobaad wejiga marka dadka qaar problem ay ka qabaan finana kasoo baxa haddaa wejigaaga fin kasoo baxo please finkaas ha dilaacinin siduu doona ha u ekaado siduu doona ha u fool xumaado please hadduu wejiga fin kasoo baxo faraha ka qaad hataa ha isku dayin inaad dilaacisid finkaas maxaa yeelay haddaad dilaacisid number 1 meesha dheecaanu ku reebayaa dheecaankaasna finan kaluu abuuri karaa number 2 meeshii finkaas markaad dilaacisid wuxuu kaga tegayaa madow haar madow kaga tegayaa marka finanka habka loola dagaalamo ma aha inaad dilaacisid laakiin hababka loola dagaalamo ayaa jira qodobkeena toddobaad wejiga ha loo naxariisto wejiga waa very sensitive waa meel jilicsan marka wejiga for example marka aad exfoliatingka waxaan ay dhahaan ay sameynaysa ama wejiga intaad wax marisid aad ku jajabinaysid waa inaad wejiga u naxariisataa oo aadan si aada u xuqin maxaa yeelay damage ayaad wejiga gaarsiin kartaa marka wejiga si sahlan oo fudud waa inaad ula dhiil garaysaan marka aad wax marinaysaan ama aad jajabinaysaan oo exfoliate garaynaysaan qodobkeena sagaalaad haddii aad sigaar cabtid ha sugin weji iftiimaya inaad heshid kareem kastoo adduunka yaala iyo wax walbo adduunka yaala haddaad isticmaashid lagama yaabo inuu wejigaaga nuuro marka haddaad sigaar cabtid waa inaad sigaarka joojisaa haddaadan sigaarka joojin wax kastoo aad samaysid wax ay tarayaan ma jirto qodobka tobnaad ee u dambeeya ha ku boodin product kasta oo lagu xayeysiiyo oo lagu yiraahdo oo kareemkaana wejiga u fiican oo kan miinta u fiican oo kan finanka u fiican oo kan wuxuu u fiican dry skinka oo kan wuxuu u fiican this and that ha dhageysanin hana ku boodin kareem after kareem maxaa yeelay arintaas wareer iyo confusion badan ay kugu koos garaynaysaa iyo lacag badan 2 milyan oo kareemna waa ka badan yihiin waxa suuqa yaala marba mid kuma boodi kartid laakiin oo iskuma tijaabin kartid marka 9 qodob ee koraan ku soo idinku soo sheegay haddaad raacdaan oo aad caafimaadkiina iyo hurdadiina iyo waxa aad marsanaysaan iyo waxa aad cunaysaan aad ka fakartaan oo aad ka shaqaysaan faa'iidada aad rabtaan waad gaaraysaan ma jiro kareem magic ah oo inta la mariyo wrinkleska iyo wax walbaba ka muudsanaya ma jiro hadduu jirana dadka Hollywoodka aad taqaanaan ee caanka ah ama dadka lacagta leh ee habeen iyo maalin qaliinada wejiga ku sameynaya ayaa kareemooyinkaas
ibsan lahaa oo isku yarayn lahaa oo aqaliinka kaga maarmi lahaa. marka ma jiraan wax magic oo inta oo dukaanka yaalo inta soo gadatid wajiga marsatid oo ku dhalin yaraynaya ma jiro. yaana laguguna sheekaynin, lacag iyo waqtina ha ku luminin. dantaada waxay ku jirtaa in aad islook after garaysid oo caafimaadkaaga from inside gudaha aad iska daweysid. markaad gudaha ka dawowdid ayaa dushana laga arki doonaa quruxdaada. waxaan jeclahay inaad videogan ka faa'iidaysateen. haddii aad ka faa'iidaysateen thumbs up isiiya, subscribe gareeya. haddaad wax su'aala qabtaan ama commentna hoos iigu soo qoro, anoo isku dayi doono inaan idinka soo jawaabo. waa mahadsantiin. wassalaamu calaykum waraxmatullah.